xamse cabdi barre waxa uu ku dhashay magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose ee koonfurta Soomaaliya horaantii 70-meeyadii. waxbarashadiisii asaasiga ah dugsiga hoose dhexe iyo sare waxa uu ku qaatay gudaha dalka. jaamacadda heerka koowaad waxa uu ku soo dhigtay waddanka Yemen, halka shahaadada heerka labaad uu ka soo qaatay jaamacad ku taala dalkaasi Malaysia. haddaba waa xildhibaan golaha shacabka ah ee baarlamaanka Soomaaliya lagana soo doortay Jubbaland. wuxuu xubin ka yahay xisbiga nabadda iyo horumarinta uu hoggaanka u yahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud, kaasoo horey uga soo noqday xoghaye. inkastoo uu shaqooyin kala duwan ka soo qabtay xafiisyada dowladda federaalka ee Soomaaliya, magaciisa wuxuu si weyn u soo shaacbaxay markii uu noqday gudoomiyihii guddiga doorashada ee Jubbaland intii u dhaxaysay 2019 ilaa 2020. intii u dhaxaysay 2014 ilaa 2015 waxa uu la taliyaha dhinaca maamulka u ahaa gudoomiyihii gobolka Banaadir ahaana duqii magaalada Muqdisho ee xilliga Xasan Maxamed Xuseen Muungaab. howlaha kale uu Xamse soo qabtay waxaa ka mid ah inuu la taliye sare ka soo noqday wasaaradda arrimaha dastuurka iyo federaaleynta. tan iyo markii uu soo dhawaaday waqtiga gabagabada ah ee uu madaxweyne xasan sheekh u haystay ku dhawaaqista ra'iisul wasaarihiisa, waxaa baraha bulshada la isku dhex marayay in siyaasigan uu noqon karo qofka la xulanayo. bishii la soo dhaafay ee May 15keedii ayay ahayd markii doorashadii madaxweynaha ee ka dhacday Muqdisho uu ku guuleystay madaxweynaha cusub, isagoo laga dhowrayay in muddo 30 maalin gudahood ah uu magacaabo ra'iisul wasaaraha si baarlamaanka loo horgeeyo. madaxweynaha Soomaaliya oo looga bartay inay soo daahaan soo bandhigidda magaca ra'iisul wasaaraha, iyadoo mararka qaar xitaa sababta muran ku aadan in la dhaafay waqtigii sharciga ahaa. markii ugu dambeysay ee mowduuca noocan oo kala ah hadal haynta dhaliyay waxay ahayd sanadii 2020. madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa muddo ka badan bil ku qaadatay soo xulashada ra'iisul wasaarihii bedelayay Xasan Cali Khayre oo ay baarlamaanka kalsoonida kala noqdeen. ma jirto muddo cayiman oo dastuurka kumeel gaarka ah ku qoran oo ay tahay in madaxweynaha uu ku soo magacaabo ra'iisul wasaare, balse dhaqanka siyaasadda ee soo jireenka ah wuxuu ahaa in madaxweynaha uu muddo bil gudaheeda ku magacaabo madaxa xukuumadda. ma jirto caqabad muuqata oo madaxweyne xasan sheekh maxamuud hortaagan, isagoo madaxweynihii hore uga duwan khilaafkii hareynayay xiriirka dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada. ra'iisul wasaare Xamse ayaa xilka kala wareegaya ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo hadda ah ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta ah ee dowladda federaalka ee Soomaaliya.